جاي قصار حوق الأيام كجرت ويك أذيك ويك لسوي بسنيو بين إني ماشي جايو لعق بدن أيام جليسة أما قصار بركاته أهلا وسهلا مرحبا بكم كسولوا هذا ولا شيء هم كتير إن له فيديو عصب يو وقت جمع عصب كسولوا هذا خطيئة مركي كقول سنة سوى بوقنا سنة حكولينا هاي البيت بيتكور بنتكم يا يسر الوالد اسمرتيننا ما أنت كم حين وهايا أذيجي بالله ها سووا أكتين بوحول بوقالي يومين وحول برمارة الأركي مرايا marka asahooyoyin hadii aan nahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولاشينا من لك official ومدى الصوماليين مركز جوجتان واني ذي السلامي ربي سبحانه وتعالى وحنك بريا قفل بقى وحنوصن إلو عافمات سيو انت عافمات قبتنا ربي وسيادي قفل بقى دبعتي سن دبعتي ذكر قاعدة مركز جوجتان ويدي سدعيني إن شاء الله الدعاء ذا سكدي وحن ربعينا إن يرك إراهذا أما أنك هذا ولاش اللي يراد الرومي أنا ku gafayn baan rabaa inaan waxyaabo badan oo aan ka fiirsaday channelkeeda aan wax ka weydiiyo haday macquul tahay insha Allah ama aan kala taliyo iyadaba dadka way la talisaa taladan wayna siisaa wixii fiicanna waa ka qaadanaa wixii aan macquul ahayna waa waxaan rabaa inaan hadda ka hadlo sida adiga dadka wax ugu sheegaysid baan anaga rabnaa inaan insha Allah wax kugu soo sheegno ra'yiga nagu jira kugu soo gudbino waxaan rajaynayaa in adigana qaadato insha Allah talada si walaaltinimo ku jirtaan kuugu soo gudbinayo abay macaan ma sha Allah dhiirigelin baa samaysaa gabdhaha Soomaaliyeed wanaag baa u soo sheegtaa wax xumaana kaama arkin ilaa khayrkeeda ku siiyo laakiin khaladaad waxa jira adiga dhankaaga ka socdo oo u baahan inaad iska saxdo insha Allah haday macquul tahay hadii kalena waa insha Allah waa saa jeclaysid laakiin waa tala walaaltinimo waxaan ku siinayo ولا شيء واحد نجوانيس واحد ترى هذا بشا أديك هلا سميست أنت كلا لعقت هلا أروريو وتلفي عن محمى قفك أنفع سوق قاعدنا وقفك أنفع إنما قاعدنا وواحد قرته لكن واحد في عن قفك بني آدمي الشجع وحنا نقالي صناعي واحد لقوا ما هي الدنيا بالبصر باليرة آخرا عمل فانسة الدنيا بالبصر والآخرة بالعمل ما فهمتي الدنيا أديك واحد أروسناي وحمل ديجناي وحقبسناي أيها حدنا لجن ولادا وحي إلى هاي كسيو واي نولش هسيد إذا بوحي سكتها وحي يرو مسقالة درتية يعني إن يرو نولشة إنجر بالنولانا يا أنت سير النولانا إنه قفك كنولان وايو أما وكعيش وحي إلهي قعنتي سوقليو وحنا وقانا أنت سكعن أديك ما وقانا ولا شيء حوجا مرة بينا جفو قادتين لكن سيدا واحد أرورني سيد حوجا جعان أذيك باكتير لقى يا عبادات كان إني أركان وحن أركي جعان أذيك النوع عسنا أولاد نولش هذا وما فيعنا أولاد نولش هذا رومياي وما فيعنا نولش إلهي سبحانه وتعالى كسي عيش وحقبصو بشي هدي أديك كلنا قط أورورصو إن بشي سواء أديكو يعني waxa horta gabar walba waa basarkeeda gabar walba markay gurigeeda dhaqanayso waa basarkeeda laakiin miiriyaha marka la soo galayo waxa kugu xiran dad baa kugu xiran dadka kugu xiran baad rabtaa inaad la taliso wax u sheegto talooyinka qaar marka aad siinayso waa in adiga laga arko qofku waa in nolosha adiga laga arko ma fahmaysaa siiba awlaada meeshan waxa jooga waa awlaad waa in nolosha laga dareemo iyaga waxa marka aan kugu arkay dhanka awlaada inaynan helin waxay u qalmeen dhowr siyaabood baanan ku dareemay ilaa qofka marka waxa aad ka soo hadlayso waa inaad aad u soo fiiriso aad u soo fahantin waxaan kugu arkay marka hadda matal ciidoo kale markaad geyso ciidoo kale markaad awlaadaada geynayso ilmaha yaryarka ah iyo ilmaha rooroon kala ciid weeyaan meelo ay kala leeyihiin ma ku dhahayo kala qaybsano adiga laba meelood kala aad hooyaa tahay laakiin waxa jirta meel ciyaalka inta la wada geeyo ay farxad ku soo wada qaataan ruumiye ciidda maalinta ay tahay sanadka dhan laba ciid oo waaweyn baa ku jira maalinta jimcaha oo ciid yaray laga saaro laakiin sanadka dhan laba ciid baa ku jira haddii labadaas ciid kaliya ilmahaagii aadan farxad gelin karin haddaad awoodin kaba soo qaad maalmaha kale oo dhan waxa dhaqaale aruuris baa ku jirta wasaa sheegaysa adiga adaa yiraahdo dhaqaale aruuris baan ku jira dhaqaale aruuris baad ku jirtaa
labadii maalmood ee sanadka dhan ka midka ahaa ciidoodii ma waxay noqotay ilmahaaga inaad geysay xadiiqadan ilaahay kugu dhaashay ma xadiiqadan ciyaalka freega u ah oo xaafad kasta laga helo oo meel kastaba laga helo oo ay ku ciyaari karaan maalintay doonaan iyo saacaday doonaan miyaa maalintii ciidii weyneed uga dhigta rumi taas waxay ku tusinaysaa gacan adayga qofka dhaqaalaha aruuri laakiin ilmaha farxadooda oo sanadkii labadaas kaliya soo galayso haddaada maalmihii kale u awoodin waa in meel carwo ah oo weyn carwo weyn oo wiishashkii ku yaalo oo wiifoogii ku yaalo oo maaragtay baabuurtii ay wadanayaan oo ay gamekii ciyaarayaan oo ilmihii farxaddii tusaysa waa inaad geysaa ilmahan xaqoodii maad marsiinin ruumiye ilmahan xaqooda maad marsiinin abaayo waxaad afkaaga ka leedahay weligay ma arkin qof xadiiqad u dhow iyo meel u dhow xadiiqad meesha ciyaalka lagu ciyaarsiiyo dadka qaar ma hadee rabaan aqoonin baarkaha ciyaalka lagu ciyaarsiiyo xaafad kastaaba qayb baa ku taala dhowr meelood baa ku yaala oo qofkii casarka intuu iska soo aado ku ciyaaray halkan oo kale waxay ahayd inay u noqoto noloshooda caadiga inay ka mid noqoto inay markay rabaan aad keeni karto casriye ahaan inaa u keeni kartid inay maalintay rabaan ku ciyaari karaan inay meeshan ciid u noqoto maba ahaynba ruumiye runtan kuu sheegaya abaayo ilmihii waxaad afkaaga ka leedahay meesha aad keentay way ii dhowdahay weligayna waa maqli jiray mana imaan jirin waayo walaashii ruumi ma baxbaxdo macnaheed maxay ku tusaysaa in ilmahaasi aadan meelo geynin activity ayna ku xirnayn meelo ay tagaan ilmaha activity iyo meelo lagu xiraa ama kubadda cagta ama kubadda kolayga ama muxuu ahaa swimmingka ama sooka yani wax uun baa ilmihii lagu xiraa markaa qurbaha joogtid oo lagu mashquuliyaa taas waxay ku tusaysaa ilmaha 24 hours inay guriga kuu fadhiyaan oo halkaas mar ay baxeen aad xadiiqada geysay ay wax weyn la tahay oo ilmaha ay ku faraxsan yihiin tan markaa waad ku qaldan tahay ruumi ciida soo socota waxaan kaa rajeynaa inaan kuga arko adoo meelo ka qurux badan maalintaas lacagta u quuray ilmaha oo meelo ka qurux badan geeyaa baayo taasaan kaa rajeynaa insha allah waxaa tiri waa ii dhowdahay meeshaan dhegtaan ka maqlaa laakiin ma arkin mana tago mana aqaan mana imaan jirin waa markii ugu horeysa imaado xadiiqadan oo kula daris ah ilmahaaga aadan geen jirin baa maalin ciid waxa uga dhigtay inay halkaas ku farxaan oo tagaan waad ka tagtay waa maalintii ciid isla maalintii ciidda khaladaadkaa samaysay ilmaha waxay cunaan waxyaabo kale oo cuntooyinka caruurta oo meelo kale laga helo ma fahmaysaa macdonald kuma dhigi karo macdonald waa hadda cunaqabateyn baa ku jiro yuhuuddu caawiya laakiin waxaa jira meelo kale oo ilmaha laga siin karo cunto oo macdonaldka usoo dhow ama carabta ay leedahay oo beegarkii ay ka helayaan baradhadooda aa sheegaysa ay ka helayaan waad la orada ilmihii waxaad geysay maqaayad aan u malaynayo inay hindi leeyihiin eeshiyaan baa tiri eeshiyaanku way badan yihiin laakiin inta badan dadka basbaaska cuna waa hindi laakiin ma daniyo kara allahu yaclam waxaad geysay maqaayad lagaaga waramay oo laguu sheego lagu dhahay maqaayadaas tag maqaayada khasab dadkii taga way kuu sheegayaan inay basbaaska ku badan tahay already waa laguu soo sheegay fiiriya khaladkaa gashay ilmihii baad kaxaysay waxaad geysay meelaad ogtahay inayna waxba ka cunaynin والله بالله واد حد قذبت عروت هذا مالا أكتها إنه وحبك كعنينين باد جيس أو بس كريه أو علمي كفر حين ما أنت لما حديقة يريد بكل عيارين أنت صفر حد ونقطة واض وده ميل بس لباد جيسي يعني وحوي وهاي وكوجا وحاج علمي وحنا واصينس وإحنا مسينس أفكار مركب حاك له هاي لقال أورورس يعني كتشرنا ماشي عن عنتدي ويكعنوا واين محوا بسباسكي عنتدي نوذ بسباسي النقطي بريسكي بسباسو النقطي مركا ميل كلام برده وقرادي اوكي واوجد مركا جو هوري ilmihii inay baahaysan yihiin adiga iyo ninka inaad dambaysaan ay ahayd meesha basbaaska daarta idinka aad laakiin ilmaha markay activity sameeyaan oo ciyaaraan cabaar ordaan baahay xun baahaysa halkaas waxa ka muuqata ilmahaaga waad ku hor cunteen ayaga basbaaska cuni waaye ayagoo nafla caari ah bay ku ag fadhiyeen ilmahaagi maad hormarin ruumi ma fahanti mana naqaan meel ay geysay because ciida laftirkeeda tusileed maadaama videoga aan soo duubtay waxa tusilahayd meesha aad geysay baa tusileed ilaa tirada adaa isdaba wada moogta taas waxay muujinaysaa
ilmihii inaad ka dhigtay inaad maqaayad geysay iyagii cuni waayeen iyagaa dulmiga iska leh ayagaa khalad ka leh ayagaa cuni waaye gurigeed geysay waxaa leedahay idinka cuni waaye gurigaa geenaysaa labadooda rootiya u marinaysaa saaxiib labadooda rootiya aad isugu marinaysaa ilmahaagii marka kama muuqato ilmahaagii dhaqaalaha aad samaynaysid waa in qofka dhaqaalaha isaga ay ka muuqato waa inuu dhaqaalaha quruxdaada iyo ilmahaaga uu ka muuqdo haddii adigii ayna kaaba muuqanin oo adigii ilmihii aad arkayso inay aad u tabardaran yihiin afkaagana aad ka leedahay videoga iyagoo ku jira rabadaantii ku caatoodeen waxaasoo dhan waxa dadka ka dhaadhicinayso waa waxa dadka usoo gudbinaysid ramadaan kumay caatoonin waa ilmo cuna qabatay inaad ku samaysay waa ilmo aad lacagtii dhan meel ka xiratay dadka qaar baa saas u gacan adaygaasina waa wax xun abaayo waxaad gabdhaha Soomaaliyeed ku waanisid oo aan maaragtay gabdhaha Soomaaliyeed dhahaya ka raacin ma aha waxaan rajaynayaa hooyo walba inay maskaxdeedu ku socoto hooyo walba ilmaheeda inay ka noolaysiiso qurbahaad ku nooshiin gabdho qurbaha aad ku nooshiin lacagta aad gurina waxa ku dhiganina alaabna ha dhiganina waxna ha qabsanin laakiin ilmihiina ka noolaysiiya haddii labis noqoto iyo haddii cunto noqoto waa in ilmahaaga laga dareemo waayo ilmaha waa waxa banaanka marka laga soo dacwoonayo ama booliisku ku imaanayaan ama la soo wareysanayo kuwa ciyalka qaata waxa ay soo wareystaan iskuulka iyo dhakhtarkii soo wareystaan labadaasba haddii duruufo badan ilmaha ku arkaan baahi ku arkaan labis xumo ku arkaan waa meesha laga soo galo ilmaha lacagta aad dhiganaysid waxba kuuma tarayso marka ruumiya lacagta aad dhiganaysid abaayo ciyaalkaagaad ka noolaysiin lahayd kuma gafay laakiin ciyaalkan duruuf baa ka muuqata ciyaalkaaga caata iyo baab baa ka muuqda kuma dhahayo maxay la caatoodeen ila qof waa sida Ilaahay u abuuro lama diido laakiin waa la arkayaa dayac ka muuqda maanta qofkii aqli leh markuu u fiirsado ciyaalka markay ciid ciyaarayaan rafaadka iyo caatada iyo waxa ka muuqda familki kasta waxa laga yaabaa hal ilmo oo cunto xun baa ku jira igama dhaadhicinaysa ciyaalkii oo dhan baa is wada raacay cunugta yar ee gacanta lahayo laba jirka waxa yar roon inta kala dhan waa miiqmiiqan yihiin rafaad baa ka muuqday sile waxaad geenaysaa meelo aan ciyaalka xaflad loo geynin waxaad geenaysaa meelo aan ciyaalka ciid loo geynin kadibna waa soo fariisanaysaa waxaa leedahay 30 bari hal mar la soo adeegto 30 bari baa soo adeegatay xitaa 1 week khudradda kale waxaa tiri weekii hal mar baa tiri anoo kula yaabsan oo la 30 bari khudradda meel ooli karto iyo vegetable iyo fruitka meel ooli karo xagay gabadha ka soo gadataa baa Ilaahay amarka wuxuu Ilaahay ka yeersiyo weekii hal mar hala soo gado weekii hal mar laftirkiisa xumaanaysa xabiibti fruitku iska xumaadaan saddexdii bari labadii bari hadaada mar inta baxayso waxaan aad halka bil ku soo adeegaysid isku lacag baa bixinaysaa hadaa u malaysid wax safe garanaysid ma safe garanaysid shay kastaba intuu yahaad bixinaysaa laakiin khudradii oo kale metal ka soo qaad Soomaaliya oo dhan mooski aad cunaan mooska weekii ma oolaya ruumiye waxa tir weekii adeega khudradda la soo gato okay week dhan baan waxaan soo gaday moos laba bari buu ku xumaadaa mooska marka xagee la dhigay alaabtaas oo kale ma khasaara dadka marka aad ku waanis marka waxaan ilaa gabar walba Soomaaliyeed nolosha ubadkaaga adiga yaqaan ana waxaan aaminsanahay gabadha Soomaaliyeed wax ka farsamo badan inayna jirin meelo waxaad soo gashay aad leedahay gabadhaha Soomaaliyeed wax ma kala xareyn karaan wax ma kala xalin karaan hadda ilaa hooyooyinkeenba wax soo xalinay waxaan aaminsanahay gabadha Soomaaliyeed inay adduunka Ilaahay ugu xalis badan tahay because hooyooyinkeen dahab yar bay meel ku xirtaan waan ka baranay haddaan gabdhanahay waan ka dhaxalnay lacag yar baa meel lagu guntaa saas loo dhigtaa wax uma hooyada Soomaaliyeed waa ta awlaad kaligeed soo saarta waa ta kaligeed korisa taasna basar bay ku soo korisay iyo macno iyo inay nolosheeda iyada ay maaragtay u tashatay marka gabar Soomaaliyeed horta alxamdulillah rabbil caalamiin hadda maanta halkan waana laga siiyo umalayn ma gabar Soomaaliyeed inay ku noosho waxaan aaminsanahay gabar walba inay nolosheeda iyo gurigeeda iyo ubadkeeda farsamo u samaysato waxa dhacday kaba soo qaad farsamada gabdhaha jikada gabar walba si bay alaabta ugu xareysataa haddaad maanta inta soo gashay ay ku tiraahdo digsigan intaan geliyaa kan intaan geliyaa farsamadaada ma raacayo because aniga haday rafta iima cuntamayso aniga waxa ay cuntamay sida aniga gurigeyga u kala basrisanaayo kabadhada mar alaabta aan ku goranayo maacunta aan ku goranayo saxamada meeshaan dhigayo qaandooyinka meeshaan dhigayo digsiga meeshaan dhigayo waa aniga farsamadayda hooyo kasta waa farsamada gurigeeda يعني أنا عاوسيد أو قبلي عاوسيد أو قاعد عن واحد جرت عن ساس وفكرين أو فكر كود أو نصيب بدنا وافهمي
caawinta caawinaysid ku caawaad ku mahadsan tahay laakiin caawintaada ha noqoto caawin adiga ka muuqato waa inay adiga ka muuqato inay awlaadi ka muuqan weydo oo awlaadi aad ka farxad gelin weydo oo tiraahdid waxaan ku jirnaa dhaqaale aruur war dhaqaalahan aakhira lama cunayo awlaadan qurbaha ku haysataan ha ku noolaadeen wax allaala waxa haysataan awlaadaada gelin nin baa u nool alxamdulillah waa lagu qabaa ninkaagii baa ku joog asaga 20 jir u adeeganay ilmahan ka noolaysi ha ka xareynin maxaad ugu xareynaysaa wixii ba meel dhigaysa waa ururinaysa waxa leedahay bishii baan hal mar soo qaada waxaad soo qaaday oo dhanna waxa u badan batarka iyo rootida la ismariyay waa waxay ku qalaleen ruumiga iga raali aho waa waxay ku qalaleen khudrad haddaad soo gadayso every day baad soo adeegi lahayd labadii bari mar baad soo adeegi lahayd hadduu gurigaaga cunto nafaqo leh laga cunaayo weeyaan haddaa cunto nafaqo leh laga cunayno oo gasac wax gasacadaysan jawaan bariisa wax qalalan laga cunaayo oo keliya yes bishii baa tiriye 6 bilood baad daarto guriga dhiganaysaa qasacadaha waxa ku jira qaar baan dhicinba sanado dhan ma fahmaysaa taasoo kalena nafaqo ilmihii kama helaan maxay nafaqo ilmihii ka helaan waxyaabaha caadiga ah freshka cunto fresh haddaa u soo gadaysid ilmahaasi week xitaa maaragtay ku dheer inaad usoo adeegtid labadii bari saddexdii bari maalin war every day baan haddaan raba soo adeegaani suuqa shaqo ma ka imid hore u soo maraa lacagtina waa isla mid meel ay dhigmaysa ma jirto waxba ma dhigmayaan wax meel ma dhigmayaan haddaa sidaad aruuri dhaqaale aruuris ku gashid adigii baan ka noolaan karin ciyaalkaaga waa ina maalinta ciida meel farxada aad geysid waa ina maalinta u quurtid meel kaliya ay jecel yihiin waad weydiin ciyaalka xaggaa xadiiqada yareed ku dhaweyd baad aqoonin ruumi kii ku dhaweyd guriga agtiisa waxa leedahay guriga agtiisa ku taalaayo ani ma baxo oo dadka baxbaxamihiyo ma aqaani waa maqli jira bas macnaheedu waxa waa ilmahaaga ma wadid ilmahaaga ma geysid xadiiqada ku dhaw iska badaa mid fog ma geysidba mid fog iska daa kii ku dhawaadan geynin ma fahmaysaa marka waxay muujinaysaa talada aad bixinayso inay talo sax ahayn oo adigii aadan si fiican oo qurux badan uga nooleen gabdhaha marka raacayo waa taas idin dambeynaysa awlaadiina ina xadiiqad yar ay ku ciidaan ba idin dambeynaysa daa siraadaan lacag meel ku xiro ilmihii kabihii waxa laga yaabaa iskoolkii markuu aado wiilka kaba qurxoon inuu arko oo ka kaba qaalisan waa ina u gadi kartaa waa ina ilmahaaga banaanka waxa yaala ee ciyaalada kala xiranayaan oo macquula oo waliba qaaliya brand name baa lagu gataa alaabta brand name baa lagu gataa waa ina brand name ka ku soo gadaan macnaha wax qaaliya ina u soo gadaan ilmihii ma fahmaysaa si markaas banaanka markuu tago uu ugu faani karo oo laga dareemi karo noloshiisa laakiin ilmihii wax wada raqiis intaad u geliso iska silacsan intaad u gelisid ayaga wada baaba'een oo feerahaas u soo qalaal u soo wada baxeen inaad tiraadin rabadaantii ku baaba'een walaal rabadaan kuwan kuma baaba'een masaakiinta rabadaan kuma baaba'een waaba caadi ma tayar ma rabadaan ku baaba'day yaraysta ugu yaroon qaangaarka ahayn ma rabadaan ku baaba'day lafaysa suran bay ahayd miyay soomaysa taas ma soomayn marka waxay muujinaysaa rooti qalalan baad siisaa saad lacagta u xareysid marka gabdhaha noloshaan waa nolol aad u xun ciyaalka yaryarka leedika guranayo waxaana keenayso sababtaana ciyaalka loo qaadayo xadiiqad yar oo u dhow baa lagu soo ciyaarsiinaya ilmihii kale ee ciida hadda xadiiqadan markaa fiirsid ay gabadhan walaashay ciyaalka geysay hal midoo carabaan ku arkayay markaan video ku fiirsanayo inta kale waa Soomaali taas waa xaq daro adiga iyo Soomaalida meesha kula joogtaba xaq daro ayay ilmahan ka galeen ciida labada jeer sanadkii ah inaad xadiiqad yar ilmaha geysaan xaq daraad ka gasheen meelaha caadiga ee carwooyinka waaweyn geen weydaan calashaan lacagtii iyo dhaqaaliyaad ka fikiraysaan hadhowna waxaa leedin awlaad baana laga qaatay awlaadii farxadoodii ma iskuulka markuu tago ilmahan ciida la soo ciiday ee muslimka wuxuu dhahayaa meel heblaaya la igeeyay iskuulka waa la isku wareystaa xagee aad ciidii xadiiqad baan aaday hadduu dhaha ka war waa lagu qoslaaya hadduu dhaho xadiiqadan aaday ciidii oo hooyada iyo waxay geeyeen meesha xadiiqadan bilaashka ah ee qof walba aan laga xigino gur walba iyo xaafad kastaba ku agtaalo markuu ilmihii ula tago shirkaas ula shir tago uu yiraahdo aniga ciidii waxa la igeeyay waa daacada waa ilmo yar moogta wuxuu leeyahay waxa la igeeyay ciidiha xadiiqad aan waligay arkin waa lagu sii qosliba wad kaanu xadiiqada ka hadlaysaa leeyahay xadiiqad noocaya ka hadlanayo xadiiqad cirka may ku taalaa marka xadiiqad aan waligay arkin haddana kaaga sii daran oo dariskayga way gurigayga agtiisa ku taan walaa lagu qoslaaya waa lagu qoslaa xadiiqad ku dhamaada waligay arkin oo ciid ahaan u tagtay abaayo isagaaji ruumi that's wrong aadi khalad u tahay
marka gabdhow iska ilaaliya bal ciyaalkan yar yarka rafaadka iyo silaca ka muuqda ila arka marka maasha allah wuu iska bi'i doonaa waa kana miskiinkaygii allahu akbar ismaa ibraahim saasa u dambeysaan ku dhahay bishii rabadaan waa lagu kala siibtay waa la sareebay bishii rabadaan guriga wax ku cayila anigii xaajada cagaajirno ilmihii waa iska caatooween horta mid labada gabdhood mar raba ciyaalka wajigooda inaan soo geliyo fiidiyogeeda kasoo arki doontaan kasoo fiirsan doontaan haddii ilaahay yiraahdo laakiin waa maqlayseen ciyaalka bishii rabadaan bay saan ku noqdeen kanay ku noqdeen bay ku haysaa marka rabadaan ma aha walaashay saas waa dhaqaale aruurinta caruurta dhaqaalaha ka aruurinaysa iska daaruumiye xadiiqada u dhowna waxay ka dhihi doonto iyo sida ay dhihi doonto idinkaa dhigiinu ku maqli doono qof xadiiqad u dhow iyo meel u dhow ciyaalka lagu ciyaarsiiya aan aqoon u lahayn dhibkaanay leedahay marka dhegaysta waxaa soo aadnay baarak ama xadiiqo xaafadeena inay u jirto oo laakiin inaba aan caadi ahayn ilmuhu maasha allah aad uga helayaan xadiiqadan waa maqli jiray daris bayna ila tahay waana first time aan imaado laanahu walaashina ruumi reera socod ma ihi aniga dadka socodka badan ma ihi haddii aan banaanka ka leeyahay wax ma aragta hool ah maahane dadka socda oo maanta iska socdo hadba meel taga ma ihi sidaas maqaayada basbaaska kaliya cuntada la keenana waata waa maalintii ciidda ciyaalka farxi lahaayeen oo meelahay jeclaayeen la geyn lahaa ayaa la geeyay maqaayada wada basbaas iyo saliida ilmo miyuu cunayaa marka ta kale maqaayadaha caadiga bariiska mar walba guriga laga cunaa wax kaloo bedelan bay ilmaha jecel yihiin oo la geeyaa sida beegarka oo kale kulli waxaa u jidaan basbaaska ka buuxo waxaa meesha wada yaalana digaagaas oo basbaas leh iyo adiga bariiskii suugooyin kala nooc ah iyo macmacaanka oo gulujaanu la yiraahdo hindida is cunto ayaa macmacaanka yaalay bas marka waa tagnay ilaa wax walba waa laga war doonaa waa la tijaabiyaa ma fahanteen waa tagnay meeshii waa kasoo casheynay ilmihii laakiin waxay ka cunaan way garan waayeen waayo cuntada meesha taalbo basbaas adoo bal basbaas iyo saliid saliidna way ka buuxdaa basbaasna waxaa iri maqaayadaha qaaliga masana laygu xayeysiiyasho waxaa iri waa ruumiye abay waad ogtahay maqaayad hindi qof aan aqoonin miyaa jirta hindigu inuu basbaaska xadhaaf u cuno ma qof Soomaaliyeed aan aqoonin baa jira cuntada hindida inay basbaas ka buuxaan sababta marka u geysa maxay tahay baayo wallahi cajiib waay marmarsiyo caadiya waay waxaan ruumiye soo daldalnay iyo maasha allah gabadheena la joogtay maartay martida noo ahayd maasha allah waxaa sameynay inteena saa isku soo dhufanay ilmihiina bardhaan iskaga dalabnay kadibna waa soo baxan waxaan dhahnay hataa bardhada inta kadib ma ka dalbi karnee meelaheena aan ka dalban jirnaa aadina ina keenaan dhahay meeshaan dhaqaalaheena dhulka la gashay inaan dhaqaalo ku jirna programka dhaqaalaha ma ogamiya war ina keena ka soo xarisiya haddana waxaa inii rajeynayaa abbaay adigii basbaaska cuni jiray basbaaskaas cuni karo waa cuntadaas cuni karo waa dhaqaale ururinta marka maxaa ka raacay dhaqaale ururinta khasab waa inaad noloshaadana aad wax ka qabato waxna ururso oo basar wax u samayso ilmihiina ha ka noolaadeen laakiin ilmihii sidan oo kale ciid uga dhigaya abbaay lama qurux badna roomi talada bixinayso adiga ka muuqato waad namaadsan tahay sida kale yacni gabdhaha ku dhiirigelinayso waad ku maadsan tahay laakiin arrintan arrin fiican ma iska bedel ciidda ku xigto ilmahaagii oo aad meel fiican geysay abbaay aan kaaga dayano insha allah aan aragno adoo meeshaas meel ka weyn geynaa xadiiqad waxa ma xadiiqad maalintii markaad joogtid weegii markaad joogtid sabtidii axadoo kale iyo waxaas ilmaha la geeya markay waliba yaryariin aad waa inuu soo daalaan waxyaabaha ay ku soo daalaan marka dambe ay hurdo fiican ku helaan ayaa ka mid in ilmihii hadda matal waxa la leeyahay guriga ilmihii wuu boodboodayaa waxa ma qabsan karna naftay noo keeneen kan inoo keeneen muxuu boodboodaa energy-giisii dhammaan muu soo bixin energy-gu waa inuu banaanka ku soo bixiya marka ilmaha siduu ku soo bixiyaa waa inaa xadiiqad geysid soo daalisid casarkii marka cuntada galabkii markaad siiso duhurkii cabaarka bacdi aad kaxaysid meesha casriyaha laga seexin jiray xitaa lama seexiyo waa la soo ciyaarsiiyaa si uu fiidka marka hore u seexdo marka ilmihii oo daalan taasi marka waa nolol maalmeedkiisa caadiga ah inay ka mid noqoto laakiin ma aha in maalmaha ciidda ee sanadka labada beri loogu talagalay inuu ilmahaasi sanadkii dhamaa halkaas marka helo meel yar inaad ku soo ciyaarsiisid marka sanadkii labada jeer kaliya ku jiro farxadda ilmaha si fiican ha loogu quuro lacagtana ha loo quuro gabdho walaashay ruumi gabdhaha kale intaasan ku waanina insha allah adigii baa cuni kari waaya basbaaska macaanto can you just wait aligudiya
hilibka basbaas uu leeyahay suugada basbaas uu leeyahay kibka basbaas uu leeyahay bariiska bis waxa kale dhan basbaas ay leeyihiin war waxaa dhahay maxay tahay amarkaan aniga basbaas cuni jira xataa basbaaska waa dhibsaday ilmihii laakiin waxaan u dalbay baradho gooniyan u dalbay ilmihii ujeedaan bariiskan wax cunay waxay yidhahdeen ma cuni abaayo waxaan rajeynayaa inaad talada adna qaadato saa noola soo talisal ay kuula soo teliyo talada waa lagu wada noolyahay sooma walaalnimada talada walaaltinimo waa lagu wada noolyahay waxaan nagula soo talisay wixii fiican waan kaa qaadanaynaa wixii aan macquul ahayna abay anigana wixii aan ka qabno waan kuu soo sheegaynaa gabdho badan baa waxaan maqlay qoraalka kugu yiri midhaasaa sheegaysay aniga ma aqrin qoraal laakiin waxaa tiri gabdho badan baa idhaha dhaqaalaha ururinaysay ilmahan baahi ku dilnaa ayay soo dhahaan baa tiri waxaan arkay bay arkeen ilmihii baahi baad ku dishay waa run taas lagama gabbanayo ilmaha noolaysi waa taladana siinaysa taladeedan ku soo siinay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu